soo dhawaada akhyaarta sharafta leh waxaynu ku socon doonaa cashirkii hore oo ku saabsanaa qaybtii hore aan hore usoo dhiganay waxaan ka soo hadalay towreed siduu ilaahay isugu muujiyey marka qaybtaas ayaynu dhammaystiri doonaa weli waxaynu ku dhex jiraa ilaahay waa kuma kitaabka towreed marka ila soco aynu sii akhrino waxyiga oo aynu ka sii hadalno arrintaas waxay leedahay towreed sidan aynu sii wadno cashirada ku saabsan cashirkaas marka waxaa jiray qiso cajiiba wuxuu ilaahay nabiga ku yidhi soo kaxee shacabka reer bani israa'iil oo buurta Sinai jirkeeda keen marka wuxuu yidhi ilaahay waxaan samaynayaa dadka reer bani israa'iil ayaan istusayaa codkaygaan maqashiinayaa waxa weeyaan waa inay bartaan oo ay ogaadaan kaan ahay marka codkaygaan maqashiinayaa ee soo kaxeeyo buurta ilaahay hoosteeda jirkeeda keen buu ku yidhi ilaahay marka wuxuu ku yidhi ilaahay istiyaariya oo ma garanaysaa istaahiriya 3 maalmood diyaar garooba buurtana ayayna cidna u soo dhawaanin ayuu ilaahay ku yidhi buurta Sinai xataa xooluhu ariga iyo lo'du iyo xooluhu neefku u soo dhawaada hal dilo buu ilaahay yidhi yeena u soo dhawaanin marka saasay yeeleen buurtiiba u soo dhawaadeen dadku way istiyaariyeen marka kadib maxaa dhacay bal aynu akhrino aayadaha qayb ka mid ah aynu akhrino sidan ayay leedahay marka فوقفوا في أسفل الجبل بورت هوستيدا أيي استاغين وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وسعد دخانه كالدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل ودعا الله موسى إلى رأس الجبل فسعد موسى فقال الرب لموسى إن حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب sidana ayay leedahay aayadahaasi marka qiso cajiib ayaa dhacday waa maalintii saddexaad rabbiga ayaa buurti Sinaa ku soo degay kolkaasay buurti isla kacday oo buurtii ma garanaysaa sidii iyadoo volcano ka kacay ay way qaraxday maxaa yeelay rabbiga ayaa ku soo degay sidii isaga oo naar oo kala ah ayay leedahay aayadu marka rabbigu Muuse ayuu u yeedhay nabi Muuse ayuu u yeedhay wuxuu ku yidhi kaalay oo buurta soo ful buurta soo ful oo buurta dhakadeeda iigu imow buu ilaahay ku yidhi meesha qarxaysay la socotay meesha markaasuu nabigu ilaahay u tagay marka nabigu waxa weeyaan waxba kuma dhicin oo maxaan ku idhaahdaa dab kuma qarxin oo dhibaato ma gaadhin laakiin meeshii ayuu rabbiga ugu tagay buurta dusheeda ahayd ayuu rabbiga ugu tagay marka rabbigu wuxuu yidhi wadaadada ii adeegayaana ha istaahiriyaan buurtana iyana cidi u soo dhawaanin buurtii oo dhanna way qarxaday oo way qiiqday codka rabbigana marka rabbigu uu hadlay nabigu ayuu la hadlay markuu nabigu rabbiga buurta dusheeda ugu tagay rabbigu Muuse wuu la hadlay Muusena wuu u jawaabayay codka rabbiga iyo hadalkiisana waxaa la moodayay baa sida buuq oo kale sida buun oo kale oo aad buu u adkaa oo aad buu u magaranaysaa dhawaaq u kululaa marka codkuna aad buu u sii kordhayay buu leeyahay wakaana sawtul buuqi yashtaadu ishtidaadan aad buu samaacadda ama mikrofoonka codka rabbigu toonkiisu aad buu u sarreeyey oo aad ayaa loo maqlayay rabbigu Muuse ayuu la hadlayay Muusena wuu u jawaabayay marka aayadaha maxaynu ku soo arkaynaa rabbigu inuu buurta ku soo degay isaga oo dab oo kale ah kan naar ayuu leeyahay sida dabka oo kale ayuu buurti ku soo degay buurtiina way qarxaday marka aayadahaas ayuu quraanku soo xigtay oo suuratul a'raaf ayaa maxaan ku dhahay sidan oo kale u soo xigtay waxay leedahay
nebi muuse ayaa ku yidhi rabbiga rabbi arinii anduru ilayka ya aan ku arko rabbiyow faqaala lan taraanii walaakin undur ila aljabal فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا ayay leedahay aayadahaas quraanku Muuse ayaa yiri Ilaahay oo ma ku arki karaa markaasuu Ilaahay ku yiri maya lan taraani marka xawayaan quraanku inta badan wuxuu soo xigtaa tawreed buu soo xigtaa tawreed muxuu Ilaahay yiri wajigayga lama arko qofkii wajigayga arka uu dhimanayaa buu Ilaahay ku yiri tawreed marka sababtaasuu buurti ay u qaraxday isagoo naar oo kala dab oo kala ayuu buurti ku soo degay يبورت كسود إلهي مركا قرآن كحول لي سورة أعراف وحول إلهي ما يما أرك كريس ولكن انظر إلى الجبل أنا جاي ما أرك تيدا بورتاس إقبال لوجر بورتاس وبورتنا هذا عنك هاللي نوي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مركو ربي وبورت يسوف يده وبورت أمه قضي بورت ويد على شيء سيدي برفكو كله جعله دكا وبورت شعبيتري فخر موسى صعقا إنه موسى سوحي ودعي قرآن قال جارة تورد إنه مش يجيسو تورد وحيل هاي موسى ربي يقول تجي ربي يقول ولها اللي يسجون وجوابي لكن قرآن كحول جاري هاي وبس سوحي ودعي يا مركا لكن وذا كسا قصة إنه إسكو متهايو إن يرو أديتنا إن يرو ديتيلو أما إن يرو فافهنا أما سيادو أي كوشرتو مقارنة إنسان مركا ساسو إلهي يسوفيدي ساسو مركا mar wuxuu ku iman jiray daruur sida daruur oo kale isaga sida daruur oo kale u iman jiray bilar sida hurricane oo kale hurricane Soomaaliya America inta badan ka dhacda markay roobku daayeen hurricane sida bilar oo kale ah oo guryaha rujiyo oo baabuurta hawada u dira saas oo kale Ilaahay ku soo degi jiray tiir saas oo kale oo daruur ah oo xoog badan ku soo degi jiray marna isagoo dab oo kale ah buurti marka sida dabka oo kale sida waxaad moodaysaa wuxuu kitaab ku leeyahay tawreed buurtu waxaad moodaysaa inuu dab cunayo oo dab ka kacayo buurta dusheeda maxaa yeelay rabbiga ku soo degay marka sidaas uu rabbigu isku muujiyay marka waxaad arkaysaa qaabab kala duwan oo laakiin muuqaal ay ishu qabanayso leh ayuu ku soo degay aan ku soconno marka aan ku sii soconno waan gartay marka waa runtii waa qiso cajiib weeyaan waxa weeyaan waxaad ka baranaysaa waxyaabo la yaab leh quraanku waa inoo iman doontaa ma qabo fikirka in Ilaahay la arki karo oo ishu qaban karto ما قبوا وينو إيمان دونتا وحويان فائدة عشرة وحويان كلا دواناشها ما قرنا إساقابك إلهي ودد كيسي سوق موجي أنا سيس عنه وانقرت وحي لا هي موسى يا أمانتي ربك أي لا ده مركا أنفعلي يركب بحيه موسى نبي موسى حريصي نبي تقول لك كركس هاته وحوها قف إلهي آد وكرامي وإلهي آد وقدو oo codsiyada nabiga Ilaahay aad buu ugu dhagan nugulaa aad iyo aad ayay isugu dhawaayeen cidii wax ka sheegta ee nabiga ku kacday ee ku falaagowdana Ilaahay baa talaabo ka qaadi jiray waxa jira xataa nin qowrax la oran jiray oo reer bani Israa'iil ka mid ah maal qabeenaha inuu 300 oo madaxda reer bani Israa'iil oo mar goostay oo yiri nabi Muuse wuu soo lugooyay nabadiisana ma rabnay naga wadiya aan ka madax banaanaan markaasuu nabigu yiri hadii anigu Ilaahay ka socdo nabiga Ilaahay ahay bari baa la ogaan doonaa keen xaq bari baa la ogaan doonaa halka soo safta anaguna halkaas aan soo safarayna marka haddaan anigu nabiga Ilaahay oo xaq ahay oo adiga gardaran tahay dhulka kula doono bi marka dhulkii baa la go'ay isaga iyo xoolihiisa iyo 300 qof iyo xaasaskoodii iyo xoolahoodii iyo dameerahoodii iyo lo'doodii iyo arigoodii dhulka liqay marka quraanku wuxuu soo xigtay qaaruun buu ka dhigay laakiin qowrax baa ninka leeyahay waa qisada waa kala duwan tahay qaabka bible ku soo quraanku hal nin buu ka dhigay oo maal qabeena oo leeyahay qaaruun ya marka laakiin ninku qowrax baa la oran jiray tawreed qowrax baa la oran jiray ninka nabi Muuse ayuu ku falaagoobay dad badan buuna jabsaday oo nabiga ka leexiyay dhulka ayaana la qoon nabigu wuxuu hadaan Ilaahay soo diro nabiga Ilaahay ahay calaamad buu Ilaahay ka muujin doonaa dhulkii baa marka liqay dhac oo la go'ay marka nabi Muuse saasoo ahaa marka aan akhrino waxaad arki karaysaa aayadaha soo socda aan akhriyo doono waxay ku muujin doonaan xiriirkii Ilaahay iyo nabi Muuse ka dhaxeeyay sidoo ah bal aan akhriyo موسى ومجد ربي أي ليده موسى يا أمانت ربك وقال موسى لربي موسى يا ربك كيري انظر أنت قائل لي أسعد هذا الشعب انظر بولي
أنت قائل لي أسعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني ووجدت أيضا نعمة أيضا في عيني ويان. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. وانظر إن هذه الأمة شعبك. فقال وجهي يصير فأريحك. waxay leedahay aayadahaas waxay leeyihiin wuxuu yidhi nabigu eebow waad dirtay oo waxaad tiri dadkan masar ka kaxee haddana ciddaad i caawin doontay eed ila dirtay ma garanayo buu yidhi yaa oo waxaad tiri magacaaga waan aqaanaa marka eebow haddii aan nicmo iyo naxariis aan agtaada ka helay yaa iskaybar buu yidhi iskaybar oo isu kay muuji buu yidhi aan ku barto intaa ka badan buu yidhi فعرفني طريقك يا ودد هذا إتوس عرفني طريقك اللي أعرفك ودوين كاجا إتوس طبعا عدا هاجا إتوس سفوين كاجا إتوس سيان كو برتو إنت حكبدن أن كو وينيو أن كو عابد أن كو أمانة بير يا دد كان نوا دد كاجي بير إيبو دد كان ربنا إسرائيل وشعب كاجي بير يا مركز إلهي وحيري وجهي يسير معك فأريحك وجهي يا أمان تيد ويان أنا كل سعونا يبي إلهي وأريحك فأريحك وان كنا سندونا أبوي وان كنا سندونا يودي بعتذا هجامين الشعب كان كاجا إيمانيسا دبعتذا كاجا إيمانيسا وان كان سندونا أبوي مركز النبي قال لي بيشري والجوك عشري والجو هرج من شري وحبال لقى شري شري marka wuxuu ilaahay wajhi yasiiru macaka marka xooyn amaanteeda iyo xoogayga iyo caawimadeeda ayaa kula socon doonta fa uriixuka waanan ku nasin doonaa ayuu ilaahay nabiga ku yiri aan ku socono faqaala lahu wuxuu yiri nabiga hadlaye nabi muuse hadlaye in lam yasir wajhuka falaa tuscidna min huna fainahu بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض يا wuxuu yidhi eebbow buu yidhi maxaanu kaga duwanaanaynaa buu yidhi aniga iyo shacabkani dad yowga kale iyo shucuubta kale maxaan kaga duwanaanaynaa miyayna ahayn inaad adigu nala jirto adigu nala socoto yaa nala joogo nala soco oo nala jir buu yidhi maxaanu dad yowga kale kaga duwanahay miyayna ahayn inaad adigu nala jirto yaa maxaa naga dhigay dad gaara miyayna ahayn adiga miyaadan ahayn ka dadka gaara naga dhigay inaad adigu nala joogto oo dhex joogto miyayna ahayn waxa aanu dad yowga kale oo dhan uga duwanahay buu yidhi aan ku socono فقال الرب لموسى ربك يا موسى الله وحو يري هذا الأمر الذي تكلمت عنه أفعله لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك فقال أرني مجدك مركا وحو يري أرنتانا عدسيغانا محو النبي كو يري ربي ونلا سعو ونلا جيرو أها نغا تغين بو يري sababtoo ah la joogitaaga iyo la jiritaankaaga ayaanu dad yowga kale dhanka kaga duwanahay bimaada amtaazu ana wa shacbuka can jamiici shucuubi al-ardi alaysa bimasirika macana buu miyayna ahayn la joogitaanka aad nala joogto mid aan ummadaha kale dhan aniga iyo shacabkanu kaga duwanahay buu marka nala joog markaas nala jir oo ha naga tagin buu markaas uu ilaahay yiri waan yeeli codsigaaga waan yeelayaa sidaasaan yeelayaa buu ilaahay yiri marka ilaahay uu ka aqbalay macnaheedu waa codsigiisii buu u shaambadeeyay oo uu ka aqbalay inuu la jirayo oo isaga iyo shacabkaba la jirayo ayuu ilaahay u ballan qaaday si socono فقال أرني مجدك فقال وجيس كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم وقال لا تقدر أن ترى وجهي
لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى أجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. وكتابك بحنينتي cutubka 3 aayadda 12 ilaa aayadda 23. marka qisadani waa qisadii hadda suuratu al-acraaf ay soo xigatay oo kale oo markuu nebiga iyo ilaahay ay saa u wada hadleen oo ilaahay uu ku yidhi codsigaagana waan yeelayaa oo waan idinla jirayaa oo waan idin dhex soconayaa ayuu wuxuu ku yidhi rabbiyow arinii anduru ilayka aan ku arko ma ku arki karaa wiil yani waxa weyn adeegayaasha ilaahay waxa ugu fiican ay helaan waa inay ilaahay arkaan. waxaan xasuustaa xadiis ma aqaan kutubta sunnada ku yaalay oo waxa uu yidhi nabi maxamed wuxuu yidhi ma garanaysa waxa ugu fiican abaalgudka ugu qaalisan ee mu'miniintu ay jannada ku helayaan markaasay dhaheen maya markaasuu yidhi ilaahay bay arkayaan. marka waxa weeyaan in ilaahay la arko waa baahi weyn oo bini aadanka ku jiro diimaha oo dhanna way ku jirtaa. diimaha oo dhan bini aadanku wuxuu u dadaalaa oo wax walbaba u sameeyaa inuu ilaahay arko. meesha ugu sarreysay bini aadan gaari karana waa inuu ilaahay arko. marka nabigu wuxuu ku yidhi marka isagii ilaahay aad isugu dhawaadeen aad isu fahmeen oo codsigii uu nabigu gudbistay oo dhan ilaahay ka yeelay wuxuu yidhi eebow iskay tus inaan ku arkaan rabaa. markaasuu ilaahay ku yidhi may ma dhici karto lan taraani ima arkaysid buu yidhi laakiin dhagaxaa ku soo istaag halkaasoo istaag buu yidhi. marka fayajtaasu juudi amaamaka ammaantaydaa ku hormaraysa ammaantayda ku hormaraysa. haddii af soomaali laga dhigo waxay noqonaysaa muuqaal ishu qabato oo ammaan leh oo tajasud ah ayaa hormaraya laakiin muuqaalka saxda ee ilaahay ma aha oo lamaba arki kara de ilaahay si buuxda looma arki karo. wuxuu yidhi marka fayajtaasu majdi amaamaka ammaantaydaa ku hormaraysa. marka halkaasoo istaag dhagaxaa ku soo istaag markaasaan magacaygaan ku naadinaya magacaygaan ku dhawaaqayaa oo ammaantaydaa ku hormaraysa buu ilaahay yidhi. markaasaan gacanta weji indhahaagaan gacanta saarayaa buu ilaahay yidhi. indhahaaga ayaan gacanta saarayaa buu ilaahay ku yidhi. waa sida bini aadanka oo kale marka ammaantaydu ay ku dhaafto xaggayga dambe fatanduru waraa'ii buu yidhi xaggayga dambe ayaad arkaysaa amaa wejhi falaa yuraa may wejigayga lama arki karo buu yidhi. laa yaraa insaanun wejhi fayaciish qof wejigayga arkay ma noolaan karo ayuu leeyahay. aayaddu ayay leedahay qof wejigayga arkay. sababtaas ayuu markaa ilaahay ciise masiix jidh u soo huwiyey. way inoo iman doontaa ciise masiix sababtaasuu jidh u soo huwaday oo uu u noqday qof bini aadan ah oo jidh bini aadan ah leh oo wax lala cuni karo wax lala cabi karo lala sheekaysan karo la arki karo wejigiisa haddana ilaahay uu ku jiray isaguu ku jiro ilaahay baa ka buuxay oo ruuxii ilaahay baa ku jiray oo shaqadii ilaahay buu sameynayay oo dad waxbuu abuurayay waxbuu nooleynayay dad dhintay buu soo kaakicinayay biyuhu ku dullugaynayay. marka way inoo iman doontaa waxay inoogu iman doontaa arrintaasi ciise masiix waa kuma marka cashirkaas inoogu iman doontaa. laakiin halkan waxaad ku arkaysaa ood ku baran doonto ku arkaysaa xidhiidhkii ilaahay iyo nabi muuse ka dhexeeyey iyo sida uu ilaahay nebiga isugu muujiyey ilaa ay gaadho heer uu ilaahay yidhaaho waan ku hormarayaa gacantaydaan wejiga indhaha kaa saarayaa saadan wejigaagu u gubanin oo u dhimanin markaasaad xaggayga dambe ayaad arkaysaa buu yidhi. marka xaggayga dambe dhabarkaygaad arkaysaa buu ilaahay ku yidhi. macnaheeda waa maxay yaynu ka hadlaynaa ilaaha koonka abuuray ee badaha adduunka een xadka lahayn abuuray baynu ka hadlaynaa. marka ilaahaasi uu kitaabka bibleka inooga sheekeynayo incarnation buu sameeyey tajasud buu sameeyey oo wuxuu iska dhigay qaab ishu qabato ayuu iska dhigay. nebigu ma arkeen dhabarkayga fataraa waraa'i amaa wejhi falaa yuraa laakiin wejigayga cidu ma aragto ayuu ilaahay ku yidhi nabiga.
marka cashirku halkaas uu inoogu joogaa waynu kusii socon doonaa cashiradan ku saabsan ilaahay kumuu ahaa kitaabka bibleka ah waxaynuna usii gudbi doonaa kitaabka qur-aanka ah iyo sida uu ilaahay isugu muujiyey ee sifooyinkiisa inoogu muujiyey marka aad baan idin salaamayaa fadlan hamogaanin oo cashirada la soco